kulanti wacan wanaagsan idil ahaanba daawadayaal kusoo dhawaada warka warasida qodobada maanta aan warka idinkugu hayno waxaa qayb ka noqon doona farmaajo Fahad Yaasiin xalka ka qaadaya hadaba maxay tahay sababta warbixin baan idinkaga haynaa dowladda Turkiga oo qaban qaabinaysa kulan ay iskugu imaanayaan madaxweynayaasha Kenya iyo sidoo kale Soomaaliya hadaba kulankaasi maxaa looga hadli doonaa maxaase ka jira in Turkiga uu dhaxdhaxaadin ka bilaabi doono dacwadda badda ee labada dal kadib kulankii mucaaradka uu la qaatay Rooble ma ka bixi doonaa hooska Farmaajo maxaase ka jira in uu kulamo qarsoodi ah uu la qaatay xubno ka tirsan midowga murashaxiinta ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad daawan doontaan warka warsida intaynu ku gudubno saaxiibayaal saxaafadda Imaaraadka oo sheekooyin sumcadil ah ka sameynaya Soomaaliya iyo shacabka dhiidhiyay arrintaasi qodobadaas iyo qodobada kale ee nagu soo kordha ayaan idiin soo gudbin doonaa warka warsida inta aad daawanaysaan kaleeto kulan wacan wanaagsan saaxiibayaal waa maalinimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay 27ka bisha 2 sanada 2021 kuwii aad daawateen waxay hayeen qodobadii warka oo kooban markana u diyaar garooba isagii oo faahfaahsan daawada haddii ay tahay markii ugu horeysay janaalka soo booqato fadlan subscribe saar oo calaamada gambareelka taabo si markaasi ay kuu soo gaaraan wararka iyo warbixinada ugu dambeeyay halkan aynu ku baahino mahadsanida aynu ku bilaabnay sida ila wareedyo muhiim ah ay inoo xaqiijinayaan waxaa xilka laga xayuubinayaa saacadaha soo aadan taliyayaasha ciidamada kala duwan ee dowladda Soomaaliya oo ugu horeeyo taliyaha hay'adda nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Fahad Yaasiin xogtani oo rasmi ah ayaa la sheegay in taliyaha hay'adda nabad-sugidda qaranka Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir lagu cadaadinayo in uu iscasilo si uu meesha uga baxo tuhunka ay qabaan qaar kamid ah saamilayda siyaasadeed oo musharaxiinta ay ugu horeeyaan iyo qaar kale oo ka tirsan maamulada dalka ka jira sida maamulada Puntland iyo sidoo kale Jubbaland Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa lagu tiriyaa garabka midig Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo garbaha uu ku duuro isagoo sidoo kale la sheegay in uu yahay wakiilka Soomaaliya ee xukuumadda Dooxa ee dalka Qatar madaxweynaha madaxweynaha ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale laga yaabaa in uu xilalka uu ka qaado taliyayaal kale oo ciidan oo ka tirsan ciidamada qaybahooda kala duwan xilka ayaa sidoo kale marka laga qaado Fahad Yaasiin waxa xilkaasi xafiiska sii joogi doono isla Fahad Yaasiin ilaa iyo laga gudbo arrimaha doorashooyinka dalka oo dalka iminka doorasho uu aadayo qodobka ah in xilka laga qaado taliyayaasha waxa uu kamid yahay shuruudo ay doorashooyinka ka qaybgalkooda ay ku xujeeyeen maamulada Puntland iyo sidoo kale Jubbaland waxaana sidoo kale soo dhaweeyay shuruudahaasi midowga murashaxiinta kuwaas oo horeyba madaxweynaha ugu baaqay in uu xilalka ka qaado taliyayaasha hay'adaha kala duwan ee ciidamada mucaaradka ayaa aaminsan in la isku haleyn karin taliyayaasha ciidamada oo ay wada shaqeyn kala dhaxayso madaxweynaha magacaabay ee Farmaajo sida darteedna ay adag tahay in doorashada ay ka qayb galaan qaar kamid ah saraakiil diiday in aan magacyadooda warbaahinta aan u adeegsano ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in maalmaha soo aadan isbedel ballaaran lagu sameyn doono talisada kala duwan ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waa tahay saaxiibayaal qaybihii horeeto ee warka ayaa daawanaysaan markana haddii aynu eegno dowladda Turkiga ayaa markan waxa ay si toos ah u soo faragelinaysaa dacwadda badda ee dowladaha Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya dowladda Turkiga ayaa ka shaqeynaysa sidii Soomaaliya iyo Kenya isugu keeni lahayd miiska wada hadalka si loo xalliyo dacwadda u dhaxaysa labada dal iyadoo dacwadda ay taalo maxkamadda ICJ taasi oo la filayo in bartamaha bisha soo aadan Maarso ay si rasmi ah u qaado wasiirka arrimaha dibadda dowladda Turkiga Melfood ayaa booqasho waxa la sheegay inuu ku imaan doono horaanta bisha soo socoto taasi oo ku beegan toddobaadyada soo aadan magaalooyinka Nairobi iyo sidoo kale magaalada Muqdisho isagoo kulamo la qaadan doono madaxweynayaasha labada dal ee Farmaajo iyo sidoo kale Uhuru Kenyatta Melfood ayaa la sheegay inuu aad uga xun yahay khilaafka qaraar ee ka dhaxeeya Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta kaasi oo bilihii la soo dhaafay xiriirkoodu aad u sii xumaanayay wasiirka arrimaha dibadda dowladda Turkiga Melfood ayaa sidoo kale waxa uu ballan ku maray in dowladda Soomaaliya uu ku garabsiin doono sidii ay ugu guuleysan lahayd dacwadda baddeena ee muranka ay gelisay dowladda Kenya Melfood ayaa kulanka uu Farmaajo kula qaadan doono horaanta bisha soo aadan ee Maarso waxa la sheegay inuu ka dhici doono madaxtooyada Soomaaliya kaasina uu noqon doono kulan qarsoodi ah
Dowladda Turkiga ayaana waxa ay sheegtay in ay dowladda Soomaaliya ka saacidi doonto in 15ka Maarsada soo socota markii loo fadhiisto qaadista dacwadda kiiska badda Soomaaliya iyo Kenya sidii ay Soomaaliya uga saacidi lahayd in ay ku guuleysato dacwadda badda ee ay ku haysato dowladda Kenya. Labada dal ayaana biyaha ay isku haystaan lagu kala saari doonaa sanadkan gudihiisa, waxayna maxkamaddu ay kiiskan ay ka soo saari doontaa go-aan aan racfaan lahayn maadaama kiiska muddo dheer uu dib loo dhigayay. Dowladda Turkiga ayaana waxa ay 10kii sano ee u dambeysay ay ahayd saaxiibka kaliya ee Soomaaliya ay ku dhex leedahay caalamka, kaasi oo aan marnaba xiriirkiisa la dafiri karin. Ra'iisul Wasaare Roble ayaa tan iyo maalinimada Khamiista shirkii looga hadlayay arrimaha doorashooyinka dalka iyo banaanbixii midowga murashaxiinta ay qorsheynayeen, kaasi oo ka dhacay hotel Dagaale ku yaala magaalada Muqdisho, ayaa waxaa soo baxaya warar qarsoodi ah kuwaasi oo sheegaya in Maxamed Xuseen Roble uu markan uu ka baxay hooskii Farmaajo. Maxamed Xuseen Roble ayaa tan iyo bartamihii sanadkii horeeto markii loo magacaabay ra'iisul wasaare dalka inuu ka noqdo ayaa waxa uu gacanta koobaad u ahaa Farmaajo, isagoo mar waliba ku dhaqmi jiray tallaabooyinka uu amro Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Roble ayaa markan waxa uu la soo baxayaa kaalintiisii hogaamineed, isagoo iminka u muuqda inuu gebi ahaanba isaga baxay hooska Farmaajo. Maxamed Xuseen Roble ayaa la sheegay in uu kulamo qarsoodi ah oo aan warbaahintu aysan la socon uu la qaatay xubno ka tirsan mas'uuliyiinta midowga murashaxiinta ay ku mideysan yihiin musharaxiinta u taagan xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya. Maxamed Xuseen Roble ayaana tan waxa ay ku tilmaameen dadka falanqeeya ama indha-indheeya siyaasadda Soomaaliya in ay noqonayso tallaabadii ugu muhiimsaneyd ee uu qaaday Maxamed Xuseen Roble, taasi oo lagu tilmaamay in ay tahay mid guul leh una soo hoyatay beesha iyo sidoo kaleeto qoyska uu kasoo jeedo Maxamed Xuseen Roble. Maxamed Xuseen Roble ayaa tan iyo maalintii la magacaabay waxa uu sidoo kaleeto u ahaa mid dib ugala noqdo go-aanada uu qaadanayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynihii horeeto ee dalka. Roble ayaa la sheegay in intii uu socday kulankii Khamiista uu la qaatay xubnaha mucaaradka iyo isaga iyo maamulada taageersan Farmaajo ee Galmudug iyo sidoo kaleeto Hirshabelle uu qaadanayay go-aamo geesinimo leh, taasi oo Maxamed Xuseen Roble la sheegay in ay ka dhigi karto mid soo bandhiga awoodiisa hogaamineed. Maxamed Xuseen Roble ayaa la sheegay in intii uu socday shirkii Khamiista uu la qaatay xubnaha mucaaradka in uu qaatay go-aano geesinimo leh, taasi oo uusan kala tashan cid kaleeto. Walow bilowgii horeeto kulanka markii uu bilaabayay la sheegay in go-aan waliba iyo arrin waliba oo midowga murashaxiinta ay usoo bandhigaan ra'iisul wasaare Roble uu banaanka u baxayay isagoo markaasi taleefan ku hadlaya, balse waxaa markii dambeeta la sheegay markii ay xaaladdu ay gaartay meel aada u xun, midowga murashaxiintana ay ka biyo diideen in ay qaataan go-aanka ah in ay baajiyaan banaanbaxa uu ra'iisul wasaare Roble uu qaatay in uusan mar dambeeto taleefan banaanka kula soo hadlin madaxweyne Farmaajo. La sheegay in uu la hadlayay go-aan waliba ay usoo gudbiyaan midowga murashaxiintana uu la wadaagayay. Roble ayaa la sheegay in kulankaasi intiisii dambeeto oo idil uu isagu u qaadanayay, taasina ay sababtay in dowladda Soomaaliya ay gebi ahaanba qaadato qaladaadkii dhacay 19 Febraayo, taasi oo lagu xabadeeyay mudaharaadyo ay horkacayeen xubnaha midowga murashaxiinta oo uu hogaaminayo ra'iisul wasaarihii horeeto ee dalka Xasan Cali Kheyre iyo sidoo kaleeto siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo siyaasadda Farmaajo tan iyo markii la doortayba aada uga soo horjeeda. Roble ayaana go-aankan uu ku qaatay in ay dowladdu ay qarato in wixii dhacay 19 Febraayo ay ahaayeen qalad ka dhacay dowladda uu noqonayaa go-aan geesinimo leh, iyadoo go-aanka wadajirka ay soo saareen midowga murashaxiinta iyo sidoo kaleeto ra'iisul wasaare Roble ay ka muuqdeen qodobo ay u eg tahay in uusan marnaba aqbali doonin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, maadaama heshiiska ay qeyb ay ka tahay in banaanbax weyn 10 maalmood gudahooda ay ku qabanqaabin doonaan midowga murashaxiinta, kaasi oo ammaankiisa ay sugayso dowladda Farmaajo. Farmaajo ayaana waxa aysan u muuqan in uu aqbalayo in mudaharaad isaga looga soo horjeego uu waardiyeeyo. Roble ayaa go-aamada uu qaatay la sheegay in ay ka dambeysay kadib markii wadahadallo dhanka taleefanka ah uu la yeeshay
siyaasiyiinta kale cabdiraxmaan cabdishakuur warsame madaxweynayaashii horeeta ee dalka xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kaleetaba sheekh shariif sheekh axmed waxa ayna dadka akhriya daraaseeyana siyaasadda soomaaliya ay ku tilmaameen in go-aankii ugu dambeeyey uguna geesanaa uu qaatay maxamed xuseen rooble taasi uu kaga baxayo hooska maxamed cabdulaahi farmaajo. qaybihii dambe ee warka warsida ayaan isla soo gaarnay markana imaaraadka ayaa ka mid ah dalalka sanadihii ugu dambeeyey cadaawada xoogan ay kala dhexeysay soomaaliya kuwaasi oo diidan midnimada iyo sidoo kaleeto wada noolaanshaha ummadda soomaaliyeed walow nasiib daradusu ay tahay in aanu jirin baraarug siyaasi ah oo mowduucani gebi ahaanba meesha ka saara. warbixin dhowaan ay daabacday warbaahinada ka howlgala gudaha dalka imaaraadka carabta ayaa waxaa sumcadil xoogan lagu geystay ummadda soomaaliyeed. warbixintan ayaa waxaa lagu yiri gacan qoriga ayuu ku haystaa qofka soomaaliga ah halka gacan kaleeto uu ku haysto laanjaada, taasi oo ay soo qaateen sawiro qadiimi ah kuwaasi oo la qaaday xilligii uu dalka uu ka jiray dagaalka sokeeye. siyaasiyiin fara badan ayaa sidoo kaleeto arrintan waxay u arkaan mid imaaraadka uu ku daandaansanayo xukuumadda waqtigeeda dhammaaday ee uu hogaamiyo maxamed cabdulaahi farmaajo. warbaahinta imaaraadka ayaa waxa ay soo gudbisay wax kasta oo ay la tahay in ay ku taageerayaan ajandahooda ka dhanka ah siyaasadda soomaaliya, waxaana ugu dambeyntii sheeko qeyb ahaan sumcadil ah oo xitaa lagu soo daray muuqaalka dad Soomaali ah kuwaasi oo lagu baahiyay warbaahinta Sky News Carabiya ay kusoo qaadatay barnaamij looga hadlayo jaadka iyo sidoo kaleeto Soomaalida. wuxuu muuqaalka uu bixinayaa in Soomaaliya ay yihiin dad faqri ah oo waalan oo qaadkuna aada uga tan weyn yahay, kuwaasi oo noloshooda asaasiga ah qeyb ka mid ah ka dhigay cunista jaadka. nasiib wanaag dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ka dhiidhiyey bahdilka iyo suurad xumeynta istiraatiijiyadda ee uu imaaraadku wado, iyagoo aada u cambaareeyay warbixintan ay diyaarisay shabakadda Sky News Carabiya. Sky ayaa ahayd markii beri dhoweyd ay qortay sheeko uu ciwaan uga dhigay in Muqdisho uu ka muuqdo muuqaal cabsi leh isaga oo Turkiga eedeynaya iyadoo ay jiraan siyaasiyiin uu lacag badan ku siiyo sidii ay Soomaaliya iyo sidoo kaleetaba xukuumadeeda ay u ridi lahaayeen. guud ahaan saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa war wixii dalka iyo daafaha caalamka naga soo gaaray. haddaba haddii aad ka heshay warka fadlan subscribe saar oo taabaa calaamada gambareelka si markaasi ay kuusoo gaaraan warbixinada iyo wararka kaleeto aynu halkan aynu ku daabacno mahadsanid.